dhinaca kale ciidamada midowga Afrika ee AMISOM oo ay taageerayaan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo labadii maalmood ee la soo dhaafay howlgallo amniga lagu xaqiijinayay ka waday deegaano kamid ah inta u dhaxaysa degmooyinka Buulaburde iyo Beledweyne ayaa waxa la soo sheegayaa in ay maanta la wareegeen deegaano dhowr ah oo dhacad duleedka magaaladaasi Beledweyne warbixin ku saabsan waxa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Muuse Muumin Hagar dagaalkan oo u dhaxeeyay ciidamada xoogga dalka iyo AMISOM oo isku dhinac ah iyo ururka Al-Shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaano u dhaxeeya degmooyinka Beledweyne iyo Buulaburde ciidamada dawladda ayaa howlgalkan maalintii labaad soconaya waxa ay kula wareegeen deegaano dhowr ah sida uu sheegay taliyaha ciidamada militariga ee deegaanada Hirshabelle General Saalax Yacquub oo la hadlay telefishinka STN inta waxaan qabanay meesha la yiraahdo Baar Dheere Beerxaane Maxamed Xasan Tareejanto meesha la yiraahdo Tareejanta la yiraahdo Food Cadde Irbow iyo Nuur Fanax oo hadda ku sugannahay waleena socodkayna waa sii wadnaa haddii alla idmo dagaalkaasna ilaa aan dhulkaas oo dhan sifayno nimanka nabadiida aan ka sifayno ma istaagi doono ma joogsanayo sidaas uu soconaa dhammaan qaybta 27aadna waa howlgalaysaa guutada 22aad oo iyadana hadda howlgal diyaar u ah iyadana waa soo dhaqaaqi doontaa labada guuta Jowhar degan soonaha Jowhar ilaa xeebta deganne waa dhaqaaqayaan guutada afaraad iyo guutada saddexaad iyagana waa dhaqaaqayeen dhinacaasna waxaa ka hogaaminayo hogaanka wada taliyaha qaybta 27aad General Koronte anigana intaan ka wadaa labada gobol muxuu ahaa Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee maamul goboleedka ku salaysan Hirshabelle ilaa xuduudaha ay la wadaagaan gobolada kaleente iyo goboladaas xuduudahooda dhan aan ka sifayno howlgalkaas waa socona hadii Ilaahay idmo annaga ilaa ay hadeer wax khasaare oo na soo gaari ma laha dhulka lagu dagaalamayana dhul buuraley waaye waadiyaasha iyo buuraha hoostooda ay nimanka ku jiraan waxaan isticmaalnay hadda hubabka culus dhimashadooda iyo dhaawacoodana waa sii jiidanayaan annagana waa soconnaa waa daba joognaa ujeedka howlgadka waxa weeye in la sifeeyo nabadna laga dhigo deegaamadaas dhammaan deegaamadaas aan kor ku soo sheegay nimanka nabadiida Al-Shabaabka laga sifeeyo Muuse Muumin Hagar telefishinka STN Beledweyne